الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij aynu ku eegayno shirweynaha koowaad ee ururka macallimiinta Soomaaliland oo maanta ku qabsoomay magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ujeedadiisu ahayd in lagu doorto hoggaanka cusub ee ururkaasi uu yeelanayo. Shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaal guud, madax iyo mas'uuliyiin kala socotay ururada wadaniga ah. Haddaba barnaamijkaasi sidii uu dhacay ayaan idinku soo gudbinaynaa daawasho wanaagsan. shirweynaha ururka macallimiinta ee Solta oo maanta ka qabsoomaya magaalada Hargeysa farxad iyo reereyn weyn bay runtii anaga wasaaradda ahaan iyo ka dawladda runtii noo tahay waayo waxay noogu tahay inaanu aragno ururadii shaqaalaha ee kala duwanaa oo kabcaya si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda dalka runtii waa arrin bogaadin weyn mudan oo farxad weyn ah runtii anagu waxaan ku shaqeynaa shuruucda dalka iyo sharciyada dalkeena u yaalla ee arrimaha shaqada iyo shaqaalaha taasi oo noo wakiishay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku adag in shuruucda dalka iyo dastuurka sidooda loo fuliyo fulinta in la aasaaso ama aanu abuurno deegaan ay ku aasaasmaan ku kobcaan ururada shaqaalaha ee kala duwani waxa jideeyay oo xaq dastuuriya ka dhigay qodobka 23aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo is-abaabulka ee bulshada ka soo sheegaya in bulshada Soomaaliland ee kala duwani ay isku abaabuli karaan ururo siyaasadeed, ururo cilmiyeed, ururo dhaqameed, ururo bulsheed iyo ururo xirfadeed iyo ururo shaqaale oo ay ka mid yihiin si waafaqsan xeerarka dalka. كاين فلين إنه كل شغالنا هو حركة قدر كاسة هي لواتنا هذا دستورك سيدو كل واحد فلين إنه حركة وردا شغالها ضيد كا أو يسوون الشيء جاي أساسا كا وردا شغالها وردا شغاله بحال الله سمية وردا شغاله بحال الله سمية واحد شلو واحد لا سوق الشغالة باتشله سوق الشغاله وعقوقه بين هاي ذاك الدول يشروع دي اللي جوها جاي أيوة كسبيسية هايدها كل الدول وحوي وهايدها الله شقيني والله شقياش هايدها كل شيء لسمي الله بهاي وحوي وهذا شقارة قيب تصدق حد وحوي إن له له السياسة دي يشروع دي لجوها جاي سوق الشقارة بكاك وزارة دهان وحال مركو رسان كالي وين كقاعدنا ونسميني إن يسبدل وين لجو سمايو واحد الشقارة يشقارة هي وزارة الشقارة دي أرجع بالشدة سر لوجد جو واحد أود بدن أو واجبات كدستور كنسية فلساء وحنا هذا كشغال نسيد اللي سمين لها أساسا كأوراد الشغالة ريدك بعدين واحد ولا الدولة دو يعد أساس كرت أوراد الشغالة بجرتو لكن أنا وحنا أبورنا ديجان هبون أو عقبض اللي جوه الاستعجال أوراد الشغالة أنا لهين دبعته أوراد الشغالة هي سببه oo asbaabkoodu uu ka baxsan yahay qabyaalad uu ka baxsan yahay gobolaysi ee lixda gobol ee dalka ka aasaasma ayaa wasaaradda si waafaqsan xeerka iyo dastuurka ay shahaadada urur shaqaale u aqoonsataa intaa wixii ka dambeeyay ururku isaga iswadaya isaga ismaamulaya si madax bannaan oo aysan cidina runtii aanay gacanta ku hayn hawlahooda aanay u faragelin ururada shaqaalaha rayidkaahi way ka madax bannaan xukuumadda way ka madax bannaan yihiin siyaasadda way ka madax bannaan yihiin ururada loo shaqeeyayaasha ee kala duwan si la mid ah marka ururada shaqaalaha rayidka ah xukuumadda waxa ka go'an inay sameysmaan ururada loo shaqeeyaha ee kala duwan mar haddii ay sameysmaan ururadii macallimiintu waxa la ogolyahay sharciyan inay sameysmaan ururada loo shaqeeyayaasha waxbarashada ee heerarka runtii kala duwan ayaa loo ogolaanaya annaga marka maanta shirkan kaalintan ku leenahay waxa weeye وأنا نكسر قيب قلون إذا كان مدح بنان ساد هجاكي نود دوران إنسان إذا كان مدح بنان دستور كي نوحد كبدل إنسان إذا كان مدح بنان هوله نيا أرميه ساد معمول إنسان وحنتي بقاعدين يا سجارة وحسجارة بقاعدين يا ونسود وين يا الجوي كسرعة قبل الله كبح حسن قبل كمرود شح سجارة وحنسود وين يا قبل كسول وحنتي قبل كوقف فوق هم كلا هذا يو أيام سود وين waxaa si gaar ah iyana waxaan baleenayaa runtii farxad weyn ah in intaas soo hablooda macallimiina maanta halkan ay fadhiyaan waa arrin kale runtii bogaadina waxaan rajaynayaa maalin dhow
in habluhu ay ragga ka badan doonaan xagga macallimiinta waayo xagga tarbiyadda iyo soo saaridda ubad akhlaaq badan hooyada ugu badan oo caawisa ubadkeena marka in la helo hablo fara badan oo macallimiina jaamiciyiina hal doorkeena iyo dadkeena wax baraya runtii muhiim weey waxaan rajaynayaa iminka shirkeenan in habluhu kaalin weyn ay ku yeeshaan hoggaanka aad dooran doontaan haddii aan la yiraahdo taariikhdu waan soo dhaweynayaa inta markaan ka yimaado macallimiinta anu macallin baan ahaa 20 sanadood macallin baan 20 sano in ku dhow macallin baan ahaa maraan jaamacadaha ka dhigay iyo maraan meelo kale runtii ka dhigay macallinku marka kaalintiisu waa kaalin runtii dahab weyn hal arrin baan idin sheegayaa waxaad midnimo ku heli kartaan idinkoo hal qof ah oo meelo kala jooga ku heli maysaan muhiimadda weyn ee leedka doonaya waxa weeye inaad midaysnaataan ninkii midnimada kari waaya midnimadu ay dhibto ayar dadku ha midaysnaadaan iskaga baxa waxaad qabsanaysaa inaad ayar iskaga baxdo tiraahdo ururka kama sii mid ahaan karayo laakiin adigoo doonaya inaad ka baxdo ha sii xagan ha sii ceebayn waxba ha ku samayn idina waxa idinka doonayaa qof kasta oo aad garan weydaan oo midnimadiina guud midnimadaasi maxay tahay inuu ka shaqeeyo danta macallinka dadka shaqada macallinka shuruucda ururku leeyahay qofka aad garan weydaan inta aan ka shaqeynayn waxaad sameynaysaa waad fasaxaysaan sharciga idii ogol dabeet halka isagoo qof oo shakhsi ah ayuu banaanka istaagayaa wixii markaa uu qabsanayo isaga markaa qabsanaya haddii la yiraahdo tusaale aan siinaya haddii maanta ismalihii macallimiinta ka shaqeeya wadanku inay ka bataan mooyaane 15 kun oo macallin kama yara in yaraan isdhegaysano macallimiinta ka shaqeeya Somaliland kaba soo qaad haday ururkan ay ka mid noqdaan 5 kun oo macallin waxaan idin sheegayaa quwaddu halkay ku jirto iyo midnimada la doonaya xuquuqda la raadinayo idinka samaysan kara waxaad u baahantiin tusaale ahaan marka soo qaad haddii aad tihiin ururkan sulta haday xubna ka noqdaan 5 kun oo macallin 5 kun oo macallin waxaan u baahanahay macallimiintu markay xubnaha noqonayaan waa inuu jiraa wax waajibaad ka dhigaya ururkan si aad uga mid noqoto membership aad bixiso waxaan aaminsanahay bishii lacag badan baa isku xukumina marka soo qaad 5 kun oo xubnood baa diiwaan geliseen oo memberisa 5 kun oo xubnood haddii bisha dhan la yiraahdo macallinkiiba $3 membership ah soo bixiyo oo 5 kun lagu dhufto bishii waxaad helaysaa $15 kun oo dollar baa akoonkiina ku jiraysa macallinka xanuunsada ka u baahan ee ubadkiisu ay badan yihiin jaamacadda laga bixiyo u baahan xafiisyadiina kirooyinkiina way ku filaanaysaa markay bishii tahay $15 kun oo dollar haddaynu sanadkii eegno marka 5 kun lagu dhufto $3 ee 12 bilood lagu dhufto waa $180 kun oo dollar $180 kun oo dollar halka laga helayaa waxa weeye waa halkii xoogga la doonaya marka waa ka ha ku wajahdaan loo shaqeeyaan iyo meelaha u shaqeeysan laakiin xooggiina si aad u mideyn lahaydeen ee aad u samaysan lahaydeen qaaraan kooban oon cidna dhibayn ayaa runtii muhiimad weyn leh dabeetana waxaad noqon doontaan gobol kasta waxaad ku dadaashaan haddii 5 kun oo qof diiwaan gelisaan oo sanadkiiba 180 kun ururisaan oo aad tiraahdaan 80 kun waxay noqonayaan kharash ku baxaya xafiisyada 6 gobol sanad kastana $100 kun oo dollar baan ku dhisanaynaa xaruntii gobolka ee ururka sulta waxaan aaminsanahay 5 sanadood gudahood 6 gobol 6 sano gudahood 6 gobol ee dalka waxaad ka dhisan kartaan 6 xafiis oo waaweyn sidoo kale dhaqaalaha ku baxaya xafiisyadiinana waad koobi kartaan idinka ku filaanay taasi marka waxa weeye quwadiina markaad saa u mideysaan weey arrinta muhiimadda leh waxa weeye inta markaad isku filaataan hawlo waaweyn baa idin yaala tusaale aan siinaya halka ma fadhiyo maanta yaa fadhiyo macallimiinta halka fadhiya macallin ardayda dhagaha la wax u dhiga mid ku jira rugcanta taaga yani ceeb weyn ahay ardayda dhagaha la ee aan waxba dhagaysan yaa wax u dhigayntiin waa hal macallin laba macallin weey macnaheedu maxay tahay bulshadeena in badan baynu ka tagnaa waxa waajib ku ah inaad sign language ka barataan tabaruc aligtid waxa weey luqadda dhagoolayaasha lagu hadlo waad barataan arrintaas waxay keenaysaa inaad xuquuqdii muwaadiniinta oo dhan
aad wax ka qabataan waxaan u baahanay in laga helo macallimiintiina macallin naafa oo baaskiil ku socda inuu soo galo loo baahan yahay oo xubin ka noqdo haddaana jirinna idinkaa la idinka doonaya inaad horumarisaan macnaheedu waxa weeyaan macallimiintii idinka horreeyey may soo saarin macallimiin luqadda saan languageska yaqaana oo ardayda dhagahala wax u dhiga dadkeenna markaa iyaanaan cidna ka tegin arrinta kale waajibkeedu ku aan idiin sheegaya maanta tiknolojiyadda cirkay maraysaa imise hooyo iyo aabbo aan waxbana qorin waxbana akhriyin baa suuqa shaqada ugu hooseysa ku jira khudaar iibinaya caana iibinaya laakiin xisaabsan kari la ama saadkii iyo iidhaabkii isticmaali kari la because sida Soomaali loo qoriyo sida xarfaha numberska loo akhriyo midna ma yaqaano taana idinka la idinka doonaya gelika dambe is abaabulo oo ururku ma ahan inaad idinku xoog noqotaan ururka illiteracy-ga ama jahliga inaad la dagaalantaan oo wasaaradda waxbarashada caawisan oo idinku doonaya waxa kamid ah halkan waxaan la fadhiyay xogayihii guud ee ururada dhismayaasha aan la fadhiyaa xogayaha guud ururkooda waxa kamid ah intaas oo aabbo oo dhismaha ka shaqeeya iyaga laftooda sidii wax loo bari lahaa iyadana waa arrin loo baahan yahay waxaan bogaadinayaa runtii abaabulkiina fiican ee gasheen ururada kale halka fadhiya ee ururka macallimiinta tacliinta sare ka mid yahay iyo ururka dhismayaasha ururada kale faraha badan leh shirweynayaashii idinka waa la idinka fadhiyaa si ururadiina ay u noqdaan sharci si la mid ah ka solta oo kale haddii la yiraahdo inta markaan ka imaado aad baan idin bogaadinayaa waxaan u baahanahay sanadkan maadaama marood sheekh lagu qabtay GA-ga kan xiga waa inuu gobolada kale mid tagaa marka dadka gobolada kale matalaya halkan fadhiya waana ku sii yaboohan iyagu hoosgareynayaan dabadeed hadhow si ay u hoosgareyn lahaayeen ay u soo dhaweyn lahaayeen shirkaasi gobolka loo uga dhici lahaa ayaynu u baahanahay xafiisyada gobolada hal la xoojiyo shirkiina ilaahay barakeeyo idin ilaahay guuleeyo mid kaliya baad u dul qaadanaysaan hawshan aynu ka shaqeynay run baan idin sheegayaa dawlad samaysa ururada shaqaalaha inay dabada ka wado oo gobolkeena geeska Afrika ka jirta ma jirto in xukuumadda lagu taageero lagu bogaadiyo lagu hableeyo waa in la idinka doonayo gabadha burca ka hadlaysay gobolka togdheer ka socotay baan ku xasuustaa inta jeer la idin xidhay inta jeer aad xabsi gasheen inta jeer dibad soo mudatay inta waan ognahay wax la iska helaa ma jirto ururada shaqaalaha marka la sameeyo waa laga cabsadaa xukuumadaha ka cabsada loo shaqeeyaasha ka cabsada cid kasta xoog isku tagaysa waa laga cabsadaa idina waxa la idinka doonayaa markaa ileen maanta ma samaysmayaan ururada shaqaaluhu muddo badan bay soo jiraan dunyada oo caqabada ay la kulmayeen inaad samirkeeda iyo dulqaadkeeda runtii yeelataan baa la idinka doonayaa aad iyo aad baan idin salaamay dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macallinku waa kuma bulshadu waxaad moodaa inay si kala duwan u fahansan yihiin macallinku ciddu yahay macallinku marka koobaadba waxaynu odhan karaa waa bulshadii oo dhan waa qofka subax walba ay u imanayaan qayb kasta oo bulshadii ka mid weliba imaatin keliya maahee wax baraya la tacaamulaya la dhaqmaya xaaladiisa ogaanaya ta muuqaalkiisa guud iyo danihiisa hoosaba macallinku waxaynu odhan karaa bulshada waxa ugu muhiimsan hooyada macallinkuna waa qoyska waxa ugu muhiimsan hooyada macallinkuna waa hooyada ummadda waa shakhsiga ummadda ugu muhiimsan macallinku waa barbaariyaha ummadda waa la taliyaha ummadda waa toosiyaha ummadda waa qofka keliya ee ay isugu mid u yihiin ilmaha uu dhalay iyo ilmaha qof kale dhalay ee uu macallinka u yahay isku si ugu naxariista isku si u tarbiyadeeya isku si ula tacaala isku si u toosiya isku si ula taliya waxaan si mug iyo miisaan leh ugu mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska cabdirashiid sheekh cabdiraxmaan cabdirashiid sheekh ibraahim oo run ahaantii qayb libaax ka qaatay shirkeenna maanta halkan aynu ku yagleelayno aynu ku ibafurayno shirweynihii koowaad ee ururka macallimiinta jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay hawsha aad gashay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro
qof wal oo macallinka caawiya ama macalimiinta garab istaagay wuxuu helayaa raad wanaagsan aakhiri adduunba saan aaminsannahay anoo ku hadlaya afka macalimiinta gobolka Awdal tan iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan nahay bahda waxbarashada gobolka Awdal waxaanu ku suntannahay ka qayb qaadashada iyo kobcinta bal waxaanu aaminsannahay oo lanoo aaminsan yahay inaan nahay hooyadii iyo aabihii tacliinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo geeska sidaa la ajligeed waxay ahayd in maanta annagu aan kaga dhawaaqno gobolka Awdal ururka jamhuuriyadda ururka macallimiinta laakiin waa la nooga horreeyay laakiin waxaan annaguna halkan ka cadaynaynaa wax xoog iyo xiniin baynaan la garab taagannahay ururka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ururka barayaasha wuxuu ahaa in hore loo bilaabo mar hore laana waad ogtihiin saddex dagaal oo waaweyn ayaa in hor yaala dalkeena maanta waa dagaalka qabyaaladda dagaalka jahliga iyo dagaalka musuqmaasuqa saddexda dagaalba ururkan ayaa u ah waxa weeye in uu gacanta ama wax la yiraahdo waxa hor yaala weeyaan ma aha ururada kale oo dhan laana waxa weeyaan macallinkii iyo macaamadii iyo dugsigii iyo iskuulkii iyo jaamacadii intaba waxa lagu bartaa wax inta ka soo horjeeda mar hore ahayd inaan bilowno marka waxaan filayaa bahabada baa jira waxa la isku bahaystaa ururada siyaasadda ururada gargaarka waxa ururada wabadayn laakiin ururkani waa ururkii ugu xaqsanaa ee ahayd mar hore in la bilaabo ay dareenka ay muujiyeen baan la qabaa duruufta ballaaran ee ka soo hadleen baan la qabaa dadaalka iyo kartida iyo raganimada ay muxuu ahaayay ballan qaadeen baan la qabaa waxaan muxuu jecelahay inaynu wada jir wax wada qabanno intii aad tiraadeen baan idinku taageersanahay boqolkiiba boqol baan idin hambalyeynaya way idin hanweynahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan muxuu ahaayay madashan gaaliga ka soo qayb galo waliba ka hadlo gobolada ergooyinka ka socdana waxaan leeyahay muxuu ahaayay waxay noo taalla sida aynu dadaalka ballaaran iyo fariinta aad ka weyn aynu u qaadi lahayn qarankeena muxuu ahaayay iyo dadkeennaba aynu muxuu ahaayay ugu horumarin lahayn taas ay noo wada taalla kuna saasaynu u taagannahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo wasaaradda shaqada gelinta iyo arrimaha bulshada ka wakiil tahayna aad baan uga soo mahad celinaynaa ogolaashaha ururada shaqaaluhu inay furmaan oo dalkooda iyagoo dastuurkooda qodobka 23 xarafkiisa 3 iyagoo fulinaya inay dhammaan ururada shaqaaluhu ay isku abaabulaan ururo oo meel midaysan urur walba laga helo intaa kadib waxa weeyaan maanta halkan ereyo kale badan ka jeedin maayo waxaan bixinayaa mahadnaq guud baan bixinayaa waxaan u bixinayo dhammaan xubnaha kala duwan ee qaranka ama qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi runtii oo heerkan aan maanta u fadhino halkan ama shirkan aan maanta halkan u fadhino inuu qabsoomo shirweynahan ururka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland Solta ku dhiirada qodob dastuuriya oo ka mid ah dastuurkeena farqadii 3 inay hirgasho oo ururada shaqaalaha iyo dhammaan bulshadu ay isu abaabuli karto ururo shaqaale xirfadeed cilmiyeed diimeed inay isu abaabuli karaan ay sheegayso farqadii 3 taas uu hirgeliyay oo wasaaraddu xil saarnayd ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku dhiirigeliyay inay si fiican awoodna u siiyeen si fiican u fuliyaan aad baan madaxweynaha ugu mahadcelinayaa oo qodobka ugu hambalyeeyo mar labaad
waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ayaan u mahadnaqayaa oo iyaduna shaqadaas si ballaaran oo hufan oo adag oo hawlkarnimo leh u gashay waan u mahadnaqayaa oo intii aan ururkan wadnay macallimiinta muddadii aan wadnay ururo badan oo shaqaale hirgelisay oo iminka ay fadhiyaan qaar badan oo ka mid ururkii jaamacadaha ururkii dhismayaasha ururkii udheelada ay fadhiyaan sidoo kale ururadii kalena ay joogaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxa weeye macallinku waa dee tarbiyadaha carruurta jiilasheena soo socda marka waxaa loo baahan yahay waa mare dee waxaa noqonaysaan haddaad cududaa xoogga la noqotaan cid waliba weydiin dhaga jilacsanaan doontaa ama dawladda ha noqoto ama cid kale ha noqoto waayo waxaa leedihiin cudud baa leedihiin codkiina la maqli doonaa dad wax fuliyaa noqon doontaan maalintaad dalbataan xitaa mushaharka laydin kordhiyo waa laydin kordhinaya waa la maqlayaa maanta waa ka awood weyntiin intii aad marka hore aad afraadda ahaydeen waa idinku hambaliyeynaynaa ururka aad samaysateen cod iyo cudud iyo xoogba uu idiin soo kordhinayaa waxaa kaloo madaxa ku haysaan dee macallinku waa barbaariyaha jiilasheenna cusub waa ogtihiinoo tacliinteenni hoos bay u dhacday tayadeedu waxaa ka soo baxaya jaamacadaha carruur aan wax badan ku soo kordhin karaynin waddanka ama aanay shaqo tegi karaynin dee taa inaad gunta ka soo mataqaanaayay barbaarisaan ayaa loo baahan yahay oo inan tayada iyo waxbarashadii hoose iyo dhexe iyo tii sareba soo qaatay oo adag inuu jaamacadda soo galo idinka ayay idinku xidhan tahay inaad taasna itikiskeedii iyo wanaaggeedii aad soo celisaan waan idinku hambaliyeynaynaa cududa maanta samayseen waan hambaliyeynaynaa ururada shaqaalaha guud ahaanba waan muxuu ahaa aad iyo aad bay u qurux badan tahay inaad maanta samaysataan ururkan waan maqlayay muddo dheer in ururka macallimiintu doonayo inay foom gareeyaan ururkoodan laakiin nasiib wanaag maanta uu ilaahay idinku simay inaad isugu timaadaan oo aad qabsataan oon weliba si gaara uga mahadcelinayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada kolley anigu waxaan ka socdaa dalladda aan idiin sheegay oo ah non state actors ama jirayaasha aan dawliga ahayn oo dhan qaranku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waxa weeyaan state actorka waa dawladnimadii iyo nidaamkii iyo systemkii qaybina waxa weeyaan wixii intaa ka soo haray ee bulshada ah ee is abaabulay ama trade union ahaadaan ama civil society ahaadaan ama private sector whatever you call waxaa doonto adigu ugu yeedho noocyada kala duwan ee bulshada ee abaabulan ayaa la yidhaahdaa non state actors marka maadaama idinku maanta halkan kaga dhawaaqaysaan xafladda furitaanka ururkiina maadaama halkan maanta aad ku dooran doontaan hoggaan cusub horta waxaan idiin ballan qaadayaa lamber 1 inaan si dhow ula shaqayn doono hoggaanka maanta halkan ku doorataan duruufo badan baa jira oo macallinka haysata oo ardayga haysata oo waalidka iyo dalka haysata waxaa laga yaabaa inaad nagu soo degdegto baahida macallinku laakiin bal waxaad ka fikirtaa macallinku maanta ardayga wuxuu dhigayo xil baa saaran macallinkii maadaama uu yahay waalidkii labaad waa barbaariyihii bulshada isagaana soo saaraya aqoontii berri maanta macallinka ardayga loo keenayo wuu ka duwan yahay kii berigii hore waxaa loo keeni jiray arday yar oo gurigooda ku soo barbaaray waalidkii jecel aabbihii jecel hooyadii jecel macallinkana wax weyn u haysta oo uu macallinku la weyn yahay oo macallinka aad u jecel laakiin maanta ardaygii yaraa intaan meelba la geynin macallin kaluu yeeshay oo aan waalidka ahayn aan aabbihii ahayn aan hooyadii ahayn isla markaa macallin shisheeyuu yeeshay oo waa maxay waa mobilka cid ka madaxda ma jirto macallin laana ninka madaxa maanta halkan fadhiya ama agaasimaha noqdo ama cid kale noqdo waxa weeye cid wax soo bartay ee kaanta gaarsi waxa macallin weeye marka waxaan aad iyo aad runtii aan u hambaleynayaa maanta bahda macallimiinta ee metelisa macallimiin weynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta halkan ku aasaasaya ama ku dhawaaqaya ama shirweyni koowaad ku qabanaya ururkoodii runtii aan aad baan bogaadinaya dadku inay dantooda iyo isku tirsanaantooda iyo wada tashigooda inay meel isku geeyaan horumar weyn baa runtii ka dhasha
أنا بعض المعلمين تنكو شراء by profession لكن ده كانوا دوري تنكو شراء dhinaca kale aan kaga jiraa 20 sano macallin soo ahaa waxaan maleynayaa aad iga muuqato laakiin se alxamdulillah 20 sano macallin soo ahaa kamana tagin waxaan soo arkaa inuu soo neefsanayo waqtigan macallimiinta hayna runtii waxa naga maqnaa wuxuu ahaa in la helo association isku xidhan macallimiinta oo dantooda iyo horumarkooda iyo waajibka qarankooda ka sugayo meel isku geeya noomay suurta gelin waa la isku day marar fara badan xukuumadihii hore ayna soo marayna qaarkood way diideen oo siyaasad bay ka dhaxarkeen dabeetana si cad bay u diideen waxaan ururada bulshada qaarkood waxa loo adeegsadaa dhow tooliye sifooyin kale dabeetana waxa weeyaan ganafka ay waqtigaas lagu dhuftay laakiin waqtiga maanta aynu joogno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ka wakiil yihiin wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshada oo Cabdirashmaan uu ka joogo ayaa waxay fududeeyeen in la helo ururkaati oo cuqdadna laga qabin lana rajaynayo inay insha Allah ta'ala ay dantoodana ay meel dhigi doonaan danta qaranka ay u hayaan ay ahay inay ilmo soo saaraan ay meel weyn runtii saari doonaan in marxaladii kala duwanaa hadday noqoto dhismihii isku ururintii xubnaha ururka hadday noqoto shuruucdiisa diiwaangelintiisa marxalado kala badan oo kala duwan buu soo maray marxaladaha uu soo maray mid walba dhibaatadeeda iyo caqabadeeda lahayd waxay imanaysay marmarka qaar in kala shaki yimaado marmarka qaar la isu soo dhawaado marxalada kala duwan la soo koobi karin runtii aad iyo aad bay farxad u tahay maanta shirweynihii koowaad oo ururka ku taabagalay in halkan lagu qabto waxaan kale doonayaa iyadana inaynu xusno oo xusid mudan waqtiyadii u dambeysay inaynu ka shaqaynaynay horumarinta iyo tayeynta ururada shaqaalaha kuwaasoo loo baahan yahay in ay noqdaan kuwa taabagala oo iskoodu madax bannaan hadday noqoto dhaqaale ahaan iyo hadday noqoto maamul ahaan labadaba waxaynu u mahadnaqaynaa jamhuuriyaddeena barakaysan madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi kaasoo fududeeyay inaynu shirkan qabsano ururkan oo in badan la hortaagnaana fududeeyay inaynu maanta qabsano madashan ilaahay baa mahad leh anaku waxa laga soo hadlay waxyaabo fara badan cid walbana madasheeda ay leedahay anigoo ku salaamaya cid walba meeqaankeeda anagu waxaanu gaar u nahay gobolka Togdheer kaasoo aanu tuhmayno inuu yahay gobolkii ugu juhdiga ugu faraha badan la geystay inuu ururkani soo gaaro halkaas warbixintiisa oo kooban haddaan idiin soo gudbiyo ururkayagu gaar ahaan Burco wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen xoghaye qasnaji afhayeen wuxuu kaloo leeyahay waxa uu golo dhexe ayuu leeyahay golaha dhexena gudoomiyuu leeyahay gudoomiyaha waxa ka sii hooseeya waaxa kale oo fara badan oo mid walba gudoonkiisa leeyahay shuruuc ayaanu leenahay aanu isku hogaamino oo aan midna ku xadgudbin xadka midkiisa kale ururka Burco waxaanu aad u tixgelinaa soo saarista macallin wanaagsan oo ardayga ka soo saari kara godku ku jiro oo gacanta u taagi kara oo ka soo saari kara halku ku jiro ama gaarsiin kara waxa uu isagu bartay ardayga gaarsiin kara ujeedada iyadoo koobaad aanu leenahay waa taa inaanu siid naga dambeeya oo loo aayo aanu soo saarno baruhu ama barayaashu runtii waa tiirka qura ee qaranku ku taagan yahay ee soo saaraya dadka mustaqbalka hilaadinaya isla markaana qaranka yagleelaya degal barwaaqo sooran oo ay dadku ku banaadaan lama soo koobi karo fadliga macallinku uu leeyahay bal anigu waxaan jeclahay in aan tix gabaya oo nin carbeed u tiriyay aan ku soo koobo isagoo ka hadlaya markaas samafalka la sameeyo in ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofka samafalka sameeyo u diiwaangelinayo dadka agtiisana abaalka uu ku leeyahay marnaba aanu waayin man yafcal almacruufa la yacdimu jawaazihi walaa yadhabu alcurfu bayna allahi wannaas markaa waa mihnad ama shaqo runtii aad u sarraysa dadka ugu maskaxda badanana loo doorto si ay u soo saaraan dadka mustaqbalka hilaadinaya ee mustaqbalka ummadda go'aaminaya waxaynu gudagelaynaa markaa gudoomiyaha doorashadiisii oo golaha dhexe dooran doonaan marka waxaan codsanayaa cidda u sharaxan gudoomiyaha inay kacdo
ها عثمان جامع حسن قدوميها قولها دحاء أيا أشرحن عدلة ترتميسا ما جرتو ما جرتا عدلة ترتميسا وما يملا ولما أنت وانس حسين سيدا سوكو أنسحمي قدوميها أوركا سولتا عثمان وحي عثمان جامع همبليو أيانو لنا هاي سودو وايهي كحجينك أيان رباين وكعو مقعاق استح عبد الوهاب فارح نور أيا أترتميا قدوميا كحجينك وركا سولتا يا لا ترتميا متشرو هالله عذيو دمان ولا تجساسو أنصحمي أنصح همبليو قدوميو كحجين سودو همبليو واي حوق هيها أوركا هاي استاجو يا ترتميا استاج مقعاقه هو صدحان كورقات عبد الله إبراهيم محمد عبد الله إبراهيم محمد رالقاه عبد الله أدان قلدي مقعاقه عبد الله إبراهيم بالله عضينيا يا الله ترتميا مجرو ما يسوق يلا ترتميا يلا ترتميا يا الله ترتميا وايو عصحية لما والله يسكوا فقسياسو عبد الله أنصح كويا هاي واي هاي هانتي دورة جود حاجة ياد ما سنتي فريسان كرت هانتي دورة جود يا أشرح واي مقعاق يا لا شرح يا لا ترتمي محمد واهنتي دورها جود أوركا هلا أنصحيه دمان قعنت لو تاجي ساسو أنصح كوي هاي عاد بانكو هم بلياننا واد سودو أوركا شقة علوس بكوتال حسابيها هاي استاجو قفك وشرحان حسابيها مقعاقة خضر حسين شام يا لا شرحان عيدنا هلو أنصحيو لما قعنتها لو تاقي سلاسو خضر أنصح كويا هاي هانتي دورها قود همبليو